dhawaada. Hadda maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin aad iyo aad muhiim u ah. Arrintaas oo ah waalidiinta qayliyo. Waxay ku saabsan tahay waalidiinta ilmahooda ku qayliyo. Okay? Haddii aad channelkayga cusub tahay soo dhawaaw. Haddii aad nala joogto waxaan ku leeyahay waa mahadsantahay soo noqodkaaga. Marka qaylada ilmahaaga maxay u dhimi kartaa? Okay? Qaylada waxay ka mid tahay khaladaadka ugu weyn ee waalidiinta Soomaaliyeed ku sameeyaan ilmahooda. waalid badan oo Soomaaliyeed waxay u maleeyaan in lagu qayliyo ilmaha inay barbaarinta. waalid badan oo Soomaaliyeed waxay u maleeyaan in lagu qayliyo ilmaha inay barbaarinta ay qayb ka tahay. Laakiin qalad weyn way arrintaas. Cunugaaga wuxuu u baahan yahay kalgacal iyo jacayl. Ilmahaaga wuxuu u baahan yahay inay isfahantaan. Ilmahaaga wuxuu u baahan yahay inuu ka dareemo inuu adiga safe kugu yahay. Okay? Inuu ilmahaaga ka dareemo waaye inaa adiga tahay qofka haddii isaga wax ka qaldamaan uu imaan lahaa. Marka adiga inaa ilmaha ku qayliso inaa ilmahaaga waxyaabo qaldan ku dhahdo waxaas oo dhan asiga ay dib dhac u tahay. Okay? Haddii aad bilowdo inaad dhageysato ilmahaaga oo aad tiraahdo hooyo waa arkaa markuu ooyo kale hooyo waa arkaa inaa ooynaysid hooyo waa ujeeda inaa ilin kaa socoto hooyo waa ujeeda inaa sidaan dareemaysid oo tilmaanto emotionska uu dareemayo asiga wax weyn ka caawise. Cunugaas marka waxaa u samaysay inuu markii hadhowti oo weynaado oona isceelkaanbinin inuuna xanaaq isku celinin inuuna isdhihin why ma fahanta. Marka ilmahaaga inaad ku qaylisid ma ahan. Okay? Khaladaad aad iyo aad u weyn waaye. Maskaxiyan uma fiicna, jir ahaan uma fiicna, dabeecad ahaan uma fiicna. Adigana haddii aad rabto ilmahaaga inuu kugu daysado muhiim waxaa ku ah inuu kaa arko wanaag. Today waa inuu wanaag ka arkaa. Markuu adiga wanaag kaa arko wuu kugu daysan karaa. Laakiin marka adiga uu kaa arko qaylada inay tahay wax caadi ah hadhowti asigana markuu qayliyo waxay lama noqonaysaa hooyaba way qaylisaa aababa wuu qayliyaa. Marka haddii aad ilmahaaga dhageysato ilmahaaga haddii aad su'aal weydiido ilmahaaga haddii aad la tashato ilmahaaga markii oo dareen uu haysto dareenkaas aad ka caawiso waxaasoo dhan waxay ka mid tahay isaga shaqsinimadiisa oo aad dhisaysid. Shaqsiga gudahaas ku jiro miskiinka u baahan in la maaragtay gacanta laga qabto oo jidka lala maro oo mataqaanaa dhul dheer oo isaga garanaynin in lala maro oo gacanta laga qabto oo tilmaamo u baahan oo dhunsan adina si dhumisid ma ahan ya inaa si dhumisid ma ahan. Muhiim waxaa waa ilmaha waalidka inay ku dareemaan wanaag. Muhiim waxaa waa ilmaha waalidka inay ku dareemaan naxariis. Inay ku dareemaan aniga qof kale oo la hadla ma haysto hooyaday iyo aabahay waa dadka aniga iigu dhow. Waa dadka aniga inaan ka baqo ayna ahayn. Inaan ka baqo ma hooyaday inaan ka cabsado maahan aabahay. Waxaa waaye dadkan u soo ordi lahay. Laakiin adiga hataa baqdin cabsi walwal ilmaha hataa ku abuurto stress kama yaraanay. Ilmaha wadanka ay mataqaanaa ay ku nool yihiin already stress ugu filan. waxbarashadii stress ku tahay luqadii fahankii la qabsashigii dadka badan oo isdhexyaacayo waxaasoo dhan waxay ku tahay dhibaato. Haddana gurigiisa inuu ku ahaa waayo maxaa la dhahaa inuu ku heli waayo deganaashadii iyo raxmadii iyo wanaagii haddana ayaan daro waayo waxaasoo kale. Marka qaladaadka ugu weyn ee waalidiin Soomaaliyeed sameeyaan adiga ha samayn. Okay? Haddaad tahay qof already samayn jirana iska jooji maanta because videogan hadduu kaa soo horbaxo marqaatiyaaba ka tahay inaan hadalkan kuu sheegay. Ma fahanta? Marqaati dadka dhageysanaayo dhan kulligiina videoga sii gudbiya. Haddaa og tahay waalid ilmihiisa markasta ku qayliyo oo ku xadgudbo oona u wanaagsanayn haddii uu markasta maqli jiro oo laakiin uuna samayn jirin videogan u gudbi adigana ajir ka helay. Marka waxaan rabaa qaladaadkaas oo waxaa loo malayaa wax yar inay tahay laakiin culays weyn saaran qiimo weyn saaran waxaa saaran miisaan saaran. Marka please waxaan idin leeyahay ilmihiina markaa la hadlaysaan u naxariista si ajir Ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkaga siiyo si adinkana u noqotiin waalid dadaalayo oo ajir ku helo because waa dadaalowna ajirkana ma helayno maxaa waaye heesaas dhib waaye. So marka ilmahaaga marka dambe ku qayli lahayd horta shaydaanka iska naar. Okay? 3 samee. Kow neefso. Okay? Indhaha isku xir indhahaaga isku xir afkaaga isku xir cunuga u dhawaaw agtiisa fariiso aamus just aamus shaydaanka iska naar. haddaa weyse qabto duko haddaadan weyse qabin weyse qaado biyaha wajiga iska soo raaci neefso
isdeji cunugan adiga ma lagugu talagelin inaa mataqaanaa oo stress kaa dhigo adiga isaga isku level ma tihiin isku da' ma tihiin isku maskax ma tihiin isku wareer ma tihiin asiga wuu yaryahay waa cunug waa loogu talagalay inuu khaldamo da-du rabo ha jiro adigana waalidkiyaa tahay isdeji neefso tartiib okay insha allah waa ogahay dhib waaye it's not easy laakiin calaamadaha waalidka wanaagsan waxaa waaye kow inuu asiga yahay qof degan marka adiga degantahay ilmo deganaa caawi kartaa ilmaha caawinaad waa sii kartaa laakiin adiga haddaadan deganayn adiga maxaa suubi kartaa adigaa wareersane jooji wareerka marka insha allah videoga haddii uu kugu horeeyo subscribe taa ilaawin haddii markasta ila fiirsi jirtana aad u mahadsantaa suulka iisoo taaga salaamu calaykum babaye